laba qarsaas xoog leh ayaa saaka laga maqlayaa gudaha magaalada Gurceel iyada oo lagu soo waramayo in dagaalka xoogiisa uu saaka ka socdo meel aan sidaas u fogeyn saldhigga degmada Gurceel ilaa aaga tuulo gaaban. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwa Galmudug oo isku dhinacaya Al-Sunna ayaa tan iyo xal isku hub urursanayay waxaana jirin waan loogu kala dab qaadayo dhinacyada isku haya joogitaanka magaalada. Waxaa lagu soo waramayaa in dhinacyada ay isku hub urursanayaan iyada oo khasaaro xoog leh uu shalay geystay dagaalkii dhacay. Labada dhinac ayaa dagaalka ugu geeriyooday ciidamo badan iyo saraakiil in ka badan 20 ruux ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen dagaalka iyada oo la soo warinayo dhaawac inuu kor u dhaafay 40. Dadka shalay dagaalka ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka danab ee Galmudug Cabdiradiif Faafle iyo laba xidigle Aadan Ibraahim Aadan oo ahaa taliyaha horinta saddexaad ee ururka shanaad ee Gorgor. Ciidamada ayaa ku wada sugan gudaha magaalada iyaga oo aag wada jira labada daamood daanta koonfureed iyo tan waqooyi. Dhaawacyada ayaa la sheegay in lagu dabiibayo xarumaha caafimaad ee Dhuusamareeb ee Gurceel iyada oo la sheegay in weli goobihii shalay aan laga soo qaadin meedadka mana jiro cid ku baxday diminta colaadaas. Korneyl Cabdulaahi Cali Macow oo horey uga tirsanaa madaxda NISA ayaa ku baaqay in la joojiyo wiilasha la isku leenayo xal aanan dagaal ahaynna loo wajaho khilaafka jira. odayaasha magaalada Muqdisho jooga iyo gobolada joogan arrintan inay ku baxdaan oo aad maartay aad gacanta ka qabataan ninka la yiraahdo qoorqoor waa ninka dagaalka horinaya waa asaga oo laga amrayo diila Soomaaliya wiilasha hala kala dhaxgalo isla markaasna waxa waan in nabad hal lagu soo rogo haddii aadan saas sameeynin qiyaamo waalidiin soo istaajina inaad ka daawataan wiilashii dhimanaya ama dhaawacmaya inaad ka daawataan telefishinada iyo idaacadaha ee website-yada waa nasiib darro aawa culamaa diinkii aawa waxgaradkii aawa siyaasiyiintii aaway dumarkii haweenkii kuwa ku soo baxa meeshan oo wiilashan yaan la isku dhameeynin nimanka ka soo amraya diila Soomaaliya iyo qoorqoor inta air conditioner ku jiraan malaayiin dollar oo ay haystaan marka wiilashow ka jooga ha sameynina marnaba guul kama keenaysan bil 2 sano 1 sano hadii uu socdo cid guuleysanaysa malaha.